السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنال كيني عبد شكور كنال oo laga baratay inuu soo gudbiyo duruus ku saabsan software-rada, design-nada iyo duruus kale oo la halmaala. Halqadeena maanta waxaynu kaga hadli doonaa software cajiib ah. Sidaad ogtiinba dhamaantiin waxaynu ka cabanaa mushkilada ah in computer-ka markaad ka yara kacdo badanaaba ay carruurtu adigoo tusaale ahaan qoraal qorayay ay qoraal kale ku sii daba qoraan keyboard-ka oo iska furan awgi amaba adigoo wax download gareynayay mushkiladaha sida tooska u dhaca in ilma yar intaad ka sii kacdo computer-kood salaad iyo wax la mid ah aad u kacdo kadib ilmi yara uu ka sii jaro mouse-kii isagoo aan garanayn kaliya ta yaqaana close sida caanka ana carruurtu waxay taqaanaa close oo kaliya tabata. marka halqadan maanta waxaan kaga hadli doonaa software yar oo cajiib ah oo kuu suura gelinaya in computer-ka shaqadiisii wata downloading-kii kala wata ama word-kii qoraalka wata internet-kiina ku jira oo adoo ka bixin aad block gareynaysa kaliya ta keyboard-kaaga iyo mouse-ka. kadib haddii ilma yar uu yimaado keyboard-kii uu siraa wax qor ma awoodayo haddii uu siraa mouse-ka dhaqaaji ma dhaqaajismayo laakiin shaashada ama screen-kaaga waad ka arkaysaa hawshii oo socota. ma doonayo inaan ku sii dheereeyo halqada ayaan gudbinaa ku soo dhawo mar labaad halqada. hagaag marka ugu horeysa waxaad tegaysaa website-kan www.kvrize.com website-kan aad ka heli doonto videoga hoostiisa ayaad tegi doontaa. markaad website-kan timaado sida caadiga ah waxaan ku dhigay videoga hoostiisa iyo kanaalka casharka labadaba waad ka helaysaa. waxaad ku dhufanaysaa download now iyo download garee. marka file-ka saad aragto oo software yar aad u fudud 500 oo kilobyte weeyaan waa kilobyte maaha hataa megabyte maaha. marka 500 oo kilobyte ayaad one click ku install gareynaysaa. hagaag software-ka waa kan setup.exe. haddii aan double click gareeyo waa inaan internet-ka horta ka yara agdhawaataa markasta because barnaamijkan waa mid ka mid ah barnaamijyada internet-ka kusoo kacaya marka ugu horeysa aad install gareynayso. marka saad aragto connection to internet-ka u dirayaa waa kan halkan inoo soo saaraya. kadib waxaan leenahay install wax badan uma baahna barnaamijku in iska sugeynaa inta uu install gareynayo. hagaag run anyway baan leeyahay. okay barnaamijka sana igu soo kaca balse marka uu barnaamijku sidan kugu soo kaco fadlan iska xir si barnaamijka aad hesho. barnaamijkan waxa mar start button-kaaga laga yaabaa inaad Windows-yada qaar ka weydo marka waa start-da tagtaa kadib aad ku qortaa kvrize. marka uu ku soo baxo right click tulsi kadib waxaad tiraa pin to taskbar-ka ku dar kadib taskbar-ka ku yimid barnaamijkii. hadda ayaan for example loo gareynaa laakiin let's say aan dhahno qoraal weedaan inka tusaale ahaan soo qorno tusaale ahaan welcome to muhtarif website iska dhahan for example qoraalkaas ayuu qornaa oo weday ka soo qaad dhinacna waxaan kaga jira internet-ka website-kan aan kaga jira barnaamijkii waan soo kixinay inaan loo gareeyaan rabaan ka kaco marka shaqadii in ay sii soconaysa ku tusaya. for example log keyboard and mouse baan leeyay kadib yes baan leeyay 5 seconds baan sugayaa mouse-ka dhaqdhaqaaqaya oo xiraya blog waa la bulugay. hadda mouse-kii si kasta oo u taabto ma shaqaynayo keyboard-kii wax kasta oo ku qoro ma taaban karayo waa ka meel kasta oo keyboard-ka haddaan taabto ma qori karayo waxna ma qori karayo mana gudbi karayo. sideed uga furaysaa markaad ka furayso waxaad taabanaysaa control alt plus delete sida kaaga muuqata shaashada. kadib Windows 10 oo kale waxa laga yaabaa inuu ku soo baxo ama Windows-yada sida caadiga u badan inuu ku soo baxo qaybtan yar ee task manager iyo change password iyo sign out iyo log back baa taabanaysaa. kadib waa ka shaqadaada ku sii socotay. for example internet-kii baad ku jirtay oo kale downloading baa ku socday let's say ay dhahno downloading-kii oo ku socda
combine idhaahno for example downloadkan barnaamijkani download garaynay downloadkii ii socda ma sii socon karaya weyn su-aasha ay weydiinaysa hadhow ma sii socon karaya downloadkii markaan loo garayo iyadana imika test ka qaadan tijaabinna okay barnaamijka ka soo qaado kan uu yiri saas uu yiri downloadkii waa socda kana waa soo qaaday load log keyboard and mouse baan yiri waan loo garaynayaa sidaad aragto uu loo garaysmay mouse iyo keyboard ma dhaqaajin karo laakiin downloadkeygii still loo sii socdaa waxaa kaloo jira software kale oo laakiin ka yara duwan shaqadiisa sida kan uu shaqaynayo desktop log ayaa la yiraahdaa softwarekan marka serial number ayuu u baahan yahay softwarekan serial numberkiisa iyo isaga wixii isku wata folder ayaan ku guridayaa waxaan ku dhigayaa videoga hoostiisa link toos ah oo markaad ku dhufatay aad ka soo download garaysto isagana aad u isticmaasho serial numberka laakiin mid baan kula talinayaa markastoo serial number isticmaalayso you have to turn off the internet waanaad internetka iska baktaysaa markastoo serial number isticmaalayso sababta serial numberada badidooda qaar baa si sir ah loo isticmaalaa marka waa in aad iska baktaysaa kabacdi markaan inta ka soo gudubno barnaamijkan wuxuu kaga yara duwan yahay kan kale waa tabtii oo kale configuration-ka toos loo galaa markaad tagto waxaana la tagaa unlock ayaa la tagaa ereygaad ku unlock garaynaysaa la sheegaa kadib control baan saxa saaraa nidaamka micnaheedu waxa weeye control iyo xarafkan halkaa ku qoro u xarafkaad computerka ka taabato i u amaad bartaa ku qorto macnaha control iyo i maya control iyo t aan ku furo maya control iyo u marka control iyo u ayaan ku unlock garaynayaa displaygana waxaa jira qoraal baan ku qori karaa halkan waxaan ku qori karaa hello friends ayaan ku qori karaa hello friends for example saas oo kale ama waxaad ku qoraysaa waxaad doontaa hello friends bana hello friends oo kale waa kasoo qaad for example ayaad ku qoraysaa halkan advancedka sidiisaad ka doonaysaa shuralkana sidiisa userskana sidiisa markaad loo garaynayso markastood loo garaynayso computer log now waad qoraysaa marka kan wuxuu kaga duwan yahay log now markaan qoro displaygayga waxaa kusoo qormaya qoraal laakiin wixii backgroundkayga ka socday sida downloading ii socday qoraal ii socday wixii ma arkay oo iga qaranaya tusaalahaan log now ayaan iri hello friends oo wareegaysaa jirta hadhow markaan furayo control u baan ku furayaa laakiin wixii masi shaqadoodii tusaalahaan downloadinka markuu socdo inuu socdo muuqaalkii waan arkaya laakiin masi isticmaalayo almuhim kana ma keyboardka iyo mouseka ma xidho laakiin keliyata waxa uu xidhayaa mouseka ayuu xidhayaa oo muraayadda inay wax ku qorqormaan ayuu diidayaa desktop looga markaad ku dhufato isaga muraayadda keliyata kalara unba ku qorqormaya mooyaane mouseka still uu sii shaqaynaya laakiin colors buu ku qorqorayaa desktopkaaga marka kii hore ayaa labadaba kasii wanaagsan oo sii blograynaya intaan xalqada kale security-ga noocan oo kale ku kulmi doono waxaan leeyahay fadlan like gareys isla markaana u share gareey asxaabtaada intay ku kulmi doona xalqadahaas. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.